السلام عليكم كسو دوادا qodobada wararka ciyaaraha caawa inta badan barnaamijka waxaan ku fiirin doonaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kaliibsiga iyo wararka kale ee xiisaha leh. Tababaraha kooxda Liverpool Klopp ayaa xaqiijiyay dhaawaca Diego Jota. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa sheegay in xidiga Diego Jota uu mari doono tijaabo cusub iyadoo laga baarayo dhaawac dhanka muruqa. xidiga reer Portugal ayaa tababarka la qaatay kooxdiisa laakiin waxa uu sheegay kulankii ay Liverpool guuldarada kala kulantay kooxda Manchester United. xidiga 25 sano jirka ayaa dhaawacmay xilli uu tababar kula jiray kooxdiisa. Tababaraha Liverpool ayaana xaqiijiyay inuu mari doono tijaabo caafimaad oo dheeriya. warbaahinta kula hadlay garoonka Singapore National Stadium ka hor kulanka saaxiibtinimo ee Jimcaha ay la ciyaari doonaan Crystal Palace. Klopp ayaa qiray inuu ka cabsi qabo in dhaawacii muruqa ah uu ku soo laabtay xidigan. Klopp arintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri Diego Jota nasiib xumo waxa uu sheegay kulankii Manchester United waxaana uu sheegay inuu ka cabsi qabo inuu soo gaaro dhaawac aad u adag kaasi oo dhibaato ku noqon karta in xidigan waqti dheer uu ka maqnaado Liverpool. laakiin tababaraha ayaa weli waxa uu sheegay in xidigan uusan ka raysanayn dhaawacii uu soo gaaray xilli ciyaareedkii hore. kooxda Chelsea ayaa waxay sheegtay inaysan u dhaqaaqi doonin saxiixa Cristiano Ronaldo. Chelsea ayaan la soo saxiixin doonin Cristiano Ronaldo kadib wadahadalo dhexmaray tababaraha kooxdaas Thomas Tuchel iyo milkiilaha kooxda Chelsea. waxaa la fahansan yahay in milkiilaha kooxda Chelsea ee la wareegay bishii May inuu tababaraha Thomas Tuchel uu hordhigay suurtagalnimada in kooxdiisa uu ku biiro Cristiano Ronaldo kadib markii uu la kulmay wakiilka xidigana. si kastaba ahaatee kadib wadahadalo dhexmaray milkiilaha iyo tababaraha waxay go'aansadeen in aanay u dhaqaaqin saxiixa xidiga 37 sano jirka Cristiano Ronaldo. sababta Tuchel ayaa doonaya in koox si wada jira uu ciyaarayso uu halkii ay noqon lahayd kooxda in hal qof ay ku tirsan lahayd sida Cristiano Ronaldo. sidaas daraadeed Tuchel ayaa muhiimad siin doona in kooxdiisa uu ciyaarsiiyo qaab koox ahaan halkii uu hal xidiga ku dhisanaan lahayd sida ku dhacday kooxda Manchester United iyo Juventus. Chelsea ayaa milkiilaha Ronaldo u sheegay inuu koox kale uu raadsado maadaama tababare Thomas Tuchel uu diiday in Cristiano Ronaldo uu ku biiro kooxdaasi. kooxaha Barcelona iyo Manchester United ayaa si rasmi ah uga heshiiyay saxiixa xidiga khadka dhexe ee Frank de Jong kadib wadahadalo muddo dheer socday. kooxda Manchester United ayaa la xiriirinaya saxiixa xidigan khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona Frank de Jong kaasi oo Erik ten Hag uu doonay in kooxda loo keeno. Manchester United ayaa muddo bilaa ku raadjoogtay saxiixa xidiga reer Netherlands kaasi oo arkana bartilmaameedka koowaad ee tababare ten Hag. saxafiga Fabrizio Romano ayaa haatan sheegay in Manchester United iyo Barcelona si buuxda ay uga heshiiyeen saxiixa xidiga khadka dhexe ee Frank de Jong. si walba haato Romano ayaa sheegay in aanay Manchester United weli wax heshiis la gaarin xidiga dhinaca shakhsiga welina aanay la hadlin xidiga. Frank de Jong ayaa ilaa haatan doonaya inuu sii joogo kooxda Barcelona inkastoo maamulka kooxda Barcelona ay u sheegeen inuu isaga tago kooxda uu raadsado koox kale cusub. ugu dambeyntii kooxda Barcelona ayaa xaqiijisay in heshiis cusub ay ka saxiixday xidiga Ousmane Dembele. kooxda Barcelona ayaa xaqiijisay in heshiis cusub ay ka saxiixday xidiga Ousmane Dembele kaasi ugu dambeyn qalinka ku dugay heshiis cusub. Barcelona ayaa xaqiijisay in xidiga Ousmane Dembele qalinka ku dugay heshiis cusub oo ilaa xagaaga 2024 ku eega. heshiiska Ousmane Dembele ee Barcelona ayaa dhacay bilowgii bishan laakiin kooxda ayaa haatan heshiis cusub oo 2 sano ka saxiixday xidiga reer France. xidiga Ousmane Dembele ayaa qayb ka ahaa qorshaha Xavi waxaana uu si xoogan uga shaqeeyay sidii uu xidiga u saxiixi lahaa heshiis cusub. xidiga reer France ayaa dhankiisa doonaya inuu sii joogo kooxda Barcelona isagoo iska diiday kooxo badan oo reer Yurooba kuwaasi oo doonayay saxiixiisa. guud ahaan waa naga inta qodobada wararka ciyaaraha caawa.